Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 227aad ee tan iyo markii howlgalka uu dalka ka bilaabay Ruushku. Daawadayaal halxiraaleheennii maalinimadii shalay ee ahaa waxaad haysataa dembiil ama saladay ku jiraan 10 xabo muus ah waxaana lagaa doonayaa si cadaalad ah inaad u kala siiso 10 carruur ah waana in 10ka xabo muuska mid ka mid ah ay dembiisha ku hartaa. Jawaabteeda markii ugu horreysay waxaa si sax ah uga jawaabay Xuseen Media oo sheegay ilmaha ugu dambeeya in lagaaga baahan yahay inaad dembiisha ku siiso. Halxiraaleheena maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa daawadayaal doraad waxaan ahaa 21 jir sanadka soo socdase waxaan noqonayaa 24 jir. Goormaan dhashay? Fadlan jawaabtaada nagula wadaag qaab commentiya mahadsanid. Dowladda Ukraine waxay sheegtay in la soo gaaray xilli qaboobaadkii dalkeeduna uu yahay mid bilaa tabar ah. Waxay sheegeen madaxda Ukrainiyiintu in cimiladu boqolkiiba eber ay ka hoos martay xilli intii badnayd ee tabarta dalkaas ciidamada Ruushka ay meesha ka saareen. Sidoo kale dowladda Ukraine waxay sheegtay weli inay ciidamada cirka Ruushku sii wadaan burburintii ay burburinayeen xarumaha tabarta laga helo. Madaxa shirkaddii hore u siin jirtay tabarta magaalada caasimadda ee Kiev waxa uu sheegay in hore shirkaddiisu ay u qaybin jirtay gaas iyo koronto balse haatan shirkaddiisu ay bilaabayso inay dadka caasimadda ku nool bustayaal iyo go'yaal adag u qaybiso. Waaba haddii ay bustayaasha iyo go'yaasha ka helaan dalalka reer galbeedka ah. Waxa uu sheegay dalkiisu inaanu haatan lahayn wax warshado ah oo bustayaal adag iyo dharka qabowga soo saari kara. Waxaana uu ka codsaday dowladaha reer galbeedka ah inay si degdeg ah dadka caasimadda ula soo gaaraan dharka adag ee qaboobaha gabaadka ka dhiganayaan. Madaxweynaha Ukrainiyiinta Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in inta badan xarumihii tabarta iyo biyaha laga heli jiray dalkiisu ay noqdeen kuwo meesha ka baxay. Waxaana uu sheegay inuu ka walwalsan yahay waxa dadkiisu ay yeelayaan xilli qaboobaadka. Inta yaroo hartana waxa uu sheegay ciidamada Ruushka weli inay ku wadaan duqaymo goordhowna laga yaabo dalkoo dhammi inuu noqdo mid bilaa tabar ah. La taliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ukrainiyiinta Volodymyr Zelensky waxa uu warbaahinta u sheegay ciidamada Ruushka maalinimadii maanta ahayd inay duqaymo ku bilaabeen magaalada Kherson. Magaalada Kherson ayaa iyadu waxay tahay magaaladii dhowaantan ciidamada Ruushka iskaga baxeen. Waxaana uu sheegay la taliyahaas inaanay jirin sabab ciidamada Ruushka magaaladii ay dhowaanta uga baxeen ay dib ugu duqeeyaan. Balse waxa uu ku macneeyay arrintan inay tahay mid argoosi ah ayna ka xun yihiin dabaaldegii Ukrainiyiintu halkaa ku dabaaldegeen dhowaantan markii magaaladaas gacantooda dib ugu soo noqotay. Afhayeenka aqalka Kremlin-ka looga arrimayo Ruushka waxa uu sheegay inaanu jirin wax horumar oo laga sameeyay difaaca xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Ciidamada Ukrainiyiintuna ay yihiin kuwa habeen iyo maalinba duqeynaya xarunta. Dowladda Ruushka ayuu sheegay horeba inay u ogolaatay qaramada midoobay inay halkaas soo booqan karto hubin kartana xaaladda Zaporizhzhia. Haatana waxa uu sheegay dowladdiisu taas inay diyaar u tahay balse kuwa halkaa burburinta ku wada ay yihiin ciidamada Ukrainiyiinta ah. Sidoo kale madaxweynaha Ukrainiyiinta Volodymyr Zelensky waxa uu ka codsaday gaashaanbuurta NATO inay iyagu damiin qaadaan nabadgelyada xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Waxa uu sheegay dowladaha in looga baahan yahay inay ka badbaadiyaan xarunta qorshayaal ay ciidamada Ruushka ku doonayeen inay gebi ahaanba ku qarxiyaan. Waxa uu sheegay haddiiba ay ku guuleystaan ciidamada Ruushka qorshayaasha ay la damacsan yihiin xarunta nukliyeerka khasaarada ka dhalatay inay noqonayso mid aan laga soo kaban karin. Indhawaalaba daawadayaal labada dowladood midba midda kale waxay ku eedeynaysaa iyadu inay tahay tan duqeynaysa xarunta nukliyeerka balse lama garan karo sabab ciidamada Ruushka ay xarunta u burburiyaan waqti xaadirkan. Ugu horreyntiiba ciidamada Ruushka waxay xarunta u qabsadeen qaab istiraatiijiyadeed waxayna aaminsanayeen ciidamada Ruushka xarunta nukliyeerku inay caawin doonto ciidamadooda marka la gaaro xilli qaboobaadka. Iyadoo haatan la gaaro xilli qaboobaadkiina lagama yaabo in ciidamada Ruushka ay yihiin kuwa doonaya inay xarunta burburiyaan. Muddada 9 biloodaba waxay gacanta ugu hayeen inay garab ka helaan xilligan haatan la soo gaaray. Booliska Ukrainiyiintu waxay sheegeen in xasuuq ciidamada Ruushka ay ka geysteen magaalada Kherson ka hor intaanay ka bixin. Waxay sheegeen maalinba ka dambeysay inay helayaan meydad aad u fara badan oo wada muujinaya intaanan dhiman ka hor in la jir dilay. Dowladda Mareykankuna waxay sheegtay inay baaritaan ku samaynayso sawirrada ay dowladda Ruushku soo bandhigtay ee muujinaya in askar Ruush oo aan hubaysnayn ay si arxan darra u laayeen ciidamada Ukrainiyiinta ah. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay haddiiba tan caddaato inay noqonayso midaan marnaba la aqbali karin.
ayna kula xisaabtami doonto arrintaa dowladda Ukraine caawiso. Shirkadda ugu weyn ee gaaska iibisa adduunka dalka Ruushka laga leeyahay Gazprom waxay sheegtay inay hakad gelinayso gaaska ay siin jirtay Jamhuuriyadda yar ee Moldova oo ah dal yar oo soodin leh dalka Ukraine. Shirkadda ayaa ku macnaysay joojinta gaaskaas in dowladda Ukraine oo beebkaas uu sii dhex mara ay bilaabeen inay iyagu gaaska xadaan. Waxay sheegtay shirkaddaas xilligan dowladda Ukraine inay dareemayso tabardarro aad u baahsan, sidaa darteedna ay haatan bilowday inay xaddo beebka gaaskii marayay. Tallaabada loo joojiyay ayuu ku macneeyay gebi ahaanba inay tahay in loo diidan yahay dowladda Ukraine inay gaas hesho. Chancellor-ka dalka Jarmalka oo maalinimadii maanta ahayd ka hadlayay shir ka furmay dalkiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu weerarsan yahay xaaladda dalka Ukraine. Waxa uu sheegay markii ugu horreysay dowladdiisu bajetka militariga inay gaarsiisay 102 bilyan, sidaasoo ay tahayna weli aana waxba ka soo naasacadayn garab walbo la siiyey dowladda Ukraine. Indhowaalaba daawadayaal dowladaha reer galbeedka waxay ka daalanayeen hubsiinta badan ee Ukraine. maalinimada berriyana insha Allah waxaad daawan doontaan barnaamij dhammaystiran oo aynu arrintaa ka samaynay dalalka reer galbeedka iyo caajiskooda hubixintii Ukraine. Dowladda Ukraine waxay sheegtay saacadba tan ka dambeysay in dhaawacyo ay soo gaarayeen xarumihii koobnaa ee weli laga helayay tabarta. Ciidamada Ruushkana ay yihiin kuwa duqeymahoodii kala duwanaa weli wada. Hay'adda qaramada midoobay waxay sheegtay in korriinkii dadyowga adduunku ay sanadkan hoos u dhaceen boqolkiiba in ka badan 3.1. sidoo kalena waxay sheegtay sanadka soo socda in la rajeynayo in boqolkiiba 2.2 dadyowga adduunku isdhimin doonaan. Qaramada midoobay ayaa arrintan u sababaysay dagaalada iyo macluusha adduunka ka taagan. ugu dambeyn daawadayaal, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la sheegay maalinimadii maanta inuu la kulmay qaybo ka mid ah hooyooyinka dhala askartiisa ka dagaalamaysa gudaha dalka Ukraine. Warbaahinta reer galbeedka ayaa indhowaalaba ku dhiirigelinaya waalidiinta Ruushka ah inaana carruurahooda u dirin dalka Ukraine. Maalinimadii maanta ahaydna ugu dambeyn waxa uu go'aansaday inuu la kulmo jawaabana siiyo hooyooyinka qayb ka mid ah. hooyooyinka iyo madaxweynaha kulankooda ayaa la sheegay inuu ku soo dhammaaday si wanaagsan, ayna isku wada raaceen hooyooyinkaasu inay waajib ku tahay carruurtoodu inay dalkooda u shaqeeyaan difaacaanna. marnaba aanan dhegaysan doonin wararka reer galbeedka ka imanaya iyo dadka cadaawadda iyo nacaybka u qaba dadka Ruushka ah. hooyo walbo ka mid ah hooyooyinkii la kulmay madaxweyne Vladimir Putin waxaa la sheegay inay u sheegtay madaxweynaha inay ku faraxsan tahay wiilkeedu inuu ka mid noqdo geesiyada dalkooda difaacaya. wiilkana aan looga baahnayn inuu difaaco sharafta hooyadiis oo keliya, balse dalkiisuna uu yahay hooyadiis. had iyo gooraanana looga baahan yahay inay kabuhu ugu jiraan cadowgana uu ka ilaaliyo. daawadayaal, intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa xogahaynu ka soo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 272aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku. dabcan wixii xogaha ku soo kordho waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka like gareeya, sheer gareeya oo la wadaaga asxaabtiina, hana ilaawina like-tiina iyo sheertiina inay noo tahay hadiyad qaali iyo dhiirigelin idinka timid, sidoo kalena xoojinaysa muuqaalka shaashadda kaaga muuqda waa mid hore ku dhaafay daawo ku xirnaada kanaalka. mahadsanidin.